haddaba jacaylkii iyo guurkii fanaankii weynaa ee Muuse Ismaaciil Qalinle iyo fanaanadii kale ee codka halaasiga lahayd ee caan baxday ee Saade Cali labadaba Allah u naxariistay ayaa wuxuu ahaa mid aad iyo aad caan ugaga ahaa gudaha geyga Soomaaliyeed iyo weliba dadka fanka Soomaaliyeed iyo suugaantiisaba u dhundaloola. jacaylka Muuse Ismaaciil Qalinle iyo Saade Cali ayaa isagu wuxuu ahaa mid heeso iyo suugaan kala duwanba lagu soo qaatay. fanaanada iyo fanaanka ayaa iyagu waxa ay ku kulmeen riwaayadii ay wadeen macallimiintii Lafoole ee lagu magacaabayo Tusma iyo Tawaawac. Saade Cali oo lagu bedelay booskii ay baneysay fanaanadii Canab Diiriye ayaa iyadu Muuse Ismaaciil Qalinle waxa ay ku kulmeen riwaayadaasi Tusmo iyo Tawaawac. kadibna waxa ay wada jileen riwaayadihii uu ahaa abwaankii weynaa Xasan Qowdhan Ducaale. haddaba jacaylkii Muuse Ismaaciil Qalinle iyo Saade Cali oo isagu ka bilaabmay Tusmo iyo Tawaawac ayaa waxa uu noqday mid taabagalay, mid laga ogaaday geyga Soomaaliyeed gedigiis. dadka fanaaniinta ahaana ay aad ula socdeen jacaylka ugubka ah ee ka dhexeeya labada fanaanka weyn ee Muuse Ismaaciil Qalinle iyo inanta kale ee iyadu fanka Soomaalida ku cusub ee Saade Cali. haddaba suugaan iyo heeso kala duwan ayaa jacaylkaasi laga sameeyey. haddaba Muuse Ismaaciil Qalinle ayaa isagu waxa u qaaday fanaanada 3 hees. 3daas hees oo kolba joogtay marxaladihii kala duwanaa ee jacaylkooda. 3daas hees ayaa waxay ka tarjumayaan midba xaaladda ay ku sugnaayeen labadaasi fanaaneeyadu iscalmaday, isna caashaqay. heestii koobaad ay wada qaadaanna waxay ahayd heestii caan baxday oo geyga Soomaaliyeed aadkii aadka lagaga yaqaano ee Cunaabi. heesta waxaa sameeyey abwaankii weynaa ee Xasan Qowdhan Ducaale. haddaba Saade Cali iyo jacaylkoodii ayaa hirgalay, wuxuuna noqday mid keena inay labada fanaan isguursadaan oo ay aqal galaan, ubaxana isu dhiibaan. haddaba iyadoo muddo sidaas isla joogaan ayaa fanaanka waxa uu gabadha fanka ku cusbeed dabeecadaheeda iyo qalqaalinimadeedii uu fahmi waayey. wuxuu isku dayay inuu la hadlo, haddaba wuxuu is yidhi si xaaladeeda ee si uun isu beddesho dabeecadaheedana ay waxuun iska beddelaan, bal waxaad dib ugu celisaa halkii miyiga ay ka timid ee ehelkeedii iyo dadkeedii ay joogeen, si ay waqti ugu soo qaadato, maskaxda ugu soo degto dabeecadaha cusub ee magaaladana ay ugaaga soo beddelmaan. miyigii ay ka timid ayuu dib ugu diray
welibana wuxuu qaaday hees uu fanaanada kula sii dardaarmayo. waxa uuna yidhi وبحود لاعي دودي نفتي داي هوين تانك دورتاي سيدة ضيحة نوراي هابنت دلهلاعي وقلبي ضرورتاي وبحود لاعي دودي نفتي داي هوين تانك دورتاي سيدة ضيحة نوراي هابدن الهلاعي وقلبي ضرورتاي درمن تاج علاي هدواكو درايا دمدانكو قارسين ولقو دبال ديقي دربنا لقو تومي درمن تاج علاي هدواكو درايا دمدانكو قارسين ولقو دبال ديقي دربنا لقو تومي وحا قدر دارنا دعادو ما نغوتي توبي داري قانو ورح دون دلاليمو دادكو آباها إيو ديقي هو يدا نغوي وحا قدر دارنا دعادو ما نغوتي توبي داري قانو ورح دون دلاليمو دادكو آباها إيو ديقي هو يدا نغوي هدقني هو يدادوي ما هم قودو داعالي. haddaba guurkii ayaa isagu sidaas ku sii socday. dabeecadaha labada fanaan ayaa iyagu iskeeni waayey. isfahankii ayaa aad u hooseeyey, iyadoo weliba fanaanadu Allah u naxariistay ayaa iyadu u fahmi waayo fanaanka. ugu dambeystii fanaanka wuxuu go'aan ku gaaray inuusan soconaynin, uusan sii dhisnaanaynin aqalka labada fanaan. go'aan ayuu ku gaaray in si uun u dhameeyo hawshani. ugu dambeystina waxa ay tagtay labada fanaan inay kala tagaan, midbana alihiisa uu goonigu doonto. fanaanka ayaa isagu jeclaa gabadha, jacayl lixaad lehna u qabay. sidaas oo ay tahayna wuxuu go'aan ku gaaray inay sidaasi uu noloshoodii ay ku dhammaato. haddaba hees ayuu qaaday uu nafsadiisa kula hadlayo, isagoo nafsadiisa u sheegaya si kastoo jacayl kasta uu qabo, si kastoo qalbigiisa jacayl igaaga buuxo iyo galgacaltooyintaba, in noloshu ay hadba maalin meel joogto. fanaanka ayaa hees wuxuu qaaday nafsadiisa uu kula hadlayo, wuxuuna yidhi وانكو ورميا هوابا ماي نفتي داي وانكو ورميا هوابا ماي نفتي داي موقتهاي وحيتيقي يروح وتيديلي وهيسو ما عليسي وهيسو ما عليسي
wakiyo tallaabada waaniga waqtanaye anigu werwereyaan xalay waa bariiste waqalkiyo daruuraha layga wacay dushoode iyo wixii cadday xidhado warmalayla dhacaya weligiin liitiya jacaylkuhu wadiica talaadihiisa weyda waxyeelaha ku gaadhe ado igu werwereyahan arrinkii wareeje haddii wercadlay xidhay waa niniyo waage oloyaha wax garado aya jooga waaye jacayl weli ma leeyahay waan wahan ma leeyahay waanada maqaataha mawanahajiyaaro waxaanahay wadeeco waxyeelaa igaadhe. haddaba saddexdii hees waxay ka mid yihiin suugaanta fanka Soomaaliyeed u diiwaan gashan ee laga sameeyey jacaylkii iyo noloshii labadii fanaan Allah u naxariistay Muuse Ismaaciil Qalile iyo Saade Cali. qiso kale oo fanka iyo suugaanta Soomaalida ku saabsan ee dib dambe ugu kulmi doono. amaana Allah.